Ethiopia ayaa dacwado argagixiso ku soo oogtay hogaamiyaha mucaaradka Jawaahir Mohamed talaabadaas oo halisteeda sii hurinaysa xiisadaha ka taagan gobolka Oromada ee xasilooni darada ka jirto. dacwadahaas lagu soo oogay Sabtidii waxay la xiriireen rabshadihii dhimashada sababay ee dhacay July kadib dilkii Hachalu Hundessa oo ahaa fanaan caan ah oo Oromo ah isla markaasna ahaa cod aan ka ahaa banaanbaxyada dawladda looga soo horjeeda ee horseeday in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo xukunka la wareego sanadkii 2018. maamulka ayaa sheegay in ka badan 180 qof lagu dilay Qalalaasihii. isku soo wada duubo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa ku dhawaaqay dacwado ka dhan ah in ka badan 20 tuhun sano oo uu ku jiro hogaamiyaha mucaaradka ee Oromada Bekele Garba qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga. eedeymaha ayaa waxaa ka mid ahaa isku dayga in la kiciyo isku dhac qowmiyadeed iyo mid diimeed oo salka ku haya si muwaadiniinta ay ugu soo jeestaan muwaadiniinta walaalahooda ah. eedeysanayaasha kale waxaa ka mid ah dhowr qof oo caan ah oo dhaliila Abiy Ahmed oo ku nool dalka dibadiisa sida dhaqdhaqaaqa caanka ah ee reer Oroma Tesgeye Regesa iyo abigii hore ee isbahaysiga u ahaa dhaleeceynta Birhane Meskel Abebe. eedeysanayaasha ayaa la filayaa inay Isniinta soo xaadiraan maxkamadda. Jawaahir oo ah maalqabeen saxaafadeed oo isku rogay siyaasi wuxuu taageero baaxad leh ku dhex leeyahay dhalinyarada Oromada wuxuuna ku laabtay Ethiopia kadib markii xukunka uu qabtay Abiy Ahmed wuxuuna ku booriyay dadka la musaafuriyay inay guryahooda yimaadaan iyadoo ay socdaan isbeddello siyaasadeed oo baaxad leh taasoo horseeday in Ra'iisul Wasaaraha uu helo abaalmarinta Nobel Peace Prize. qowmiyadda Oromada ayaa ah qowmiyadda ugu tirada badan dalka Ethiopia laakiin waligood ma aysan qaban jagada ugu sarreysa dalka ilaa ay gacan ka geysteen sidii Abiy Ahmed uu xukunka ula wareegi lahaa. hadda xiisadaha ku salaysan qowmiyadaha iyo rabshadaha ka dhex jira bulshada ayaa caqabad ku ah isbedelada uu sameynayo Abiy Ahmed. Jawaahir ayaa si kulul ugu dhaleeceeyay Abiy Ahmed dib u dhigista doorashada oo la qorsheynayay inay qabsoonto Agoosto. waqtiga loo igmaday dawladda ayaa ku eg dhamaadka bisha soo socota lamana cayimin waqtiga cusub ee doorashada. Jawaahir wuxuu xirnaa tan iyo Qalalaasihii July qarinadiisa waxay si isdaba joog ah u cadeeyeen in loo xiray sababo la xiriiro aragtiyadiisa siyaasadeed waxayna ku baaqeen in la sii daayo. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in xariga noocan oo kala ah ay muujinayso in isbedelada siyaasadeed ee Abiy ay sii siqayso. garyaqaanka Jawaahir Tulli Bayesa ayaa sheegay in aan lagu soo wargelin eedeymaha loo soo jeediyay balse uu ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn. waa wax aad loola yaabo waxaan 100% hubaa taas inay qaadan karto sanado iyo sanado laakiin ma cadeyn doonaan eedeymahan haddii sharcigu si dhab ah u shaqeynayo ayuu Tulli u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. qoraalka xeer ilaaliyaha guud ma bixin faahfaahin ku saabsan eedeymaha laakiin Tulli waxa uu ku sheegay kiiska Jawaahir inay u muuqdaan inay ka walacsan yihiin gacan ka hadal ka dhacay meedka Hachalu kaasoo sababay dhimashada sargaal boolis ah. ma jiro hal marqaati oo si joogto ah uga hadlay wax dambi ah midkoodna Mr. Jawaahir ama Mr. Bekele ayuu yiri. bishii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan 5 qof howlgal ka dhan ah dibadbaxyada looga soo horjeedo xariga Jawaahir. bishii Oktoobar ee sanadkii hore daraasiin dad ah ayaa la dilay kadib markii Jawaahir uu ku eedeeyay ciidamada amniga inay isku dayeen inay abaabulaan weerar isaga ka dhan ah. Abiy ayaa ra'yigiisa ku daabacay toddobaadkan wargeyska The Economist waxa uuna ku qoray shakhsiyaadka iyo kooxaha ay saameysay isbedelada dhacaya waxay u adeegsanayaan wax kasta oo ay gacantooda ku hayaan si ay uga leexiyaan. waxay gurayaan miraha qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan kala qaybsanaan iyo nacayb. dib u habeynta amniga waxay qaadataa waqti. Abiy waxa uu qiray xadgudubyada la sheegay inay geysteen ciidamada amniga intii ay socdeen rabshadaha isagoo yiri marka la fiiriyo hay-adaha aan dhaxalnay waxaan ogaanay in howlaha sharci fulinta ay keenayaan halista xadgudubyada iyo ku tumashada xuquuqda aadanaha.